Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, dear brothers and sisters. Welcome to our YouTube channel, Osman Pancher, for studying or learning the English language. Walaalayaal kusoo dhawaada channelkeena barashada luqadda Englishka oo aan alaaba halka kana idinkaga soo gudbiyo anigoo ah teacher Osman Abdulqadir Pancher. Maanta waxaan qaadanaynaa casharkeeni 54 waa alla mahadi oo inoo suurtageliya casharkeeni 54 in aan maanta qaadano. Ka hor inta casharkeeni aan guda galin waxaan rabaa inaan u sheego ardayda sida wacan ugu soo diyaar garooday inay wada sheekaysiga sameeyaan oo sameysay aad iyo aad ay ugu mahadsan yihiin. waqtiga oo cariiri nagu ahaa awgi fiidnimadii sabtida ayaan soo dhaafnay intii ay u suurtagali kartay waa ay sameeyeen, balse waxaan isku dayi doonaa inaan ardayda u qaybino qaybo si waqti fiican loo wada helo insha Allah. Ardayda rabto inay sameyso wada sheekaysiga waxaan mar walbo leeyahay waqtiga balanta ah kasoo hormar 5 daqiiqo insha Allah, si waqtiga balanta haday ku dhacdo si toos ah oo wada sheekaysiga iyo su'aal isweydiinta ay inoogu bilaabato. Okay, maanta waxaan qaadanaynaa casharkeeni 54 waxaan ku qaadanaynaa family markaad arkaysid waa qoys. waxaa muhiim ah inaad baratid muxuu yahay family. Okay, qoys, family waa qoys. Familygu inta badan waa 3 generation waa ayaa laga bartaa, laga soo bilaabo awooga, aabaha iyo adiga iyo caruurtaada. Okay, marka waxaan isku dayaynaa inaan ka soo bilaawno awooga, kadibna aabaha, kadibna qofku, kadibna caruurtiisa iyo ilmuhu waxa uu yahay. Okay, waxaan ku bilaabaynaa marka hore wax la yiraahdo grandparents. Grand diido ku dhawaaqi kartaa grandparents. Parents marka aad dhehaysid parentsna waa dhihi kartaa. Parents oo parents labadaba waa dhawaaqi kartaa kelmadda parents oo parents. marka grandparents oo grandparents marka dhehaysid waxa weeyaan waa awoowayaal ama ayeeyaal. kelmadaas grandparents. Parent markaad aragtid waa waalidkaaga sida aabaha iyo hooyada. Grandparent marka waalidkay kasii weyn yihiin waxaa leedahay grandparents ayaan meeshan ku baranaynaa. waxaan soo qaadanaynaa grandfather waa awooga. awoogaasoo noqon karo midka dhalay aabaha ama dhalay hooyada. grandfather waa awooga. waxaa kaloo jirto grandmother waa ayeyda. marka grandmother ayay iidana waxay noqon kartaa ayay dhashay aabo ama ayay dhashay hooyo. marka grandmother waa ayeeyo. marka grandfather maxaa kaloo la dhihi karaa horta? grandfather oo awooga ah waxaa kaloo la dhihi karaa luqadda Englishka grandpa. waxaa kaloo la dhihi karaa granddad. waxaa kaloo la dhihi karaa granddaddy. ayaad ugu dhawaaqaysaa waa grandfather, grandpa, granddad, granddaddy. intaas baad ugu dhawaaqi kartaa. waa grandfather, grandpa, granddad, granddaddy. afartaas awooga waad ugu dhawaaqi kartaa. halka hooyada ayadana aad dhihi kartid grandma, garani waa ayeeyo. grandma, garani waa ayeeyo. intaas waxaan u maleynayaa waa awow iyo ayeeyo inaan isla fahmay. markaan waxaan guda galaynaa parents ayaan guda galaynaa oo ah waalidiin. parents maxay yihiin marka? waa aaba iyo hooyo. parent waxaa kaloo la dhihi karaa qofta ku nuujiso waa la dhihi karaa, ama qofta adiga noloshaada qayb ka soo qaadatay koriishaheeda waa la dhihi karaa.
marka waxaan leenahay parents waa waalidiin. waxaan kasoo qaadanaynaa marka father waa aabo, father waa aabo. mother waa hooyo, mother waa hooyo. father waa aabe, mother waa hooyo. father waxaa kaloo dhihi kartaa dad oo ay caruurta inta badan dhahaan. dad waa aabaha, daddy waa aabaha. waa jiide dhawaaqa aada waa jiide dad, daddy. okay, father, dad, daddy waa aabaha. mother waa hooyada. waxaa dhihi kartaa oo kale mom. as American, mom waa mom markay tahay, ama waxaa dhihi kartaa mom waa mum markay tahay British ahaan, ama waxaa kalentoo dhihi kartaa mommy oo mom ama waxaa dhihi kartaa mommy oo ah mummy oo Britishka ku dhawaaqo. markay u-da tahay Britishka ku dhawaaqo, markay tahay o-dane Americanka ku dhawaaqo. marka mother, mom, mom, mommy, mommy. intaas waa isla fahamnay. waxaa kaloo jira marka adeer aan rabnaa meeshan inaan ku barano oo hooyo qaba laakiin aan adiga ku dhalin. waxaa la yiraahdaa step father ayaa la yiraahdaa. step father waa adeerka hooyo qaba oo aan asaga ku dhalin. waxaa la yiraahdaa step father. step father. hooyada oo aabbo qabo oo adiga aan ku dhalin waxaa la yiraahdaa step mother ayaa la yiraahdaa. step mother ayaa la yiraahdaa. waa hooyo labaad ama eedo halkay dadka qaar u yaqaanaan. okay, marka waa step father oo ah adeer iyo step mother oo ah eedo. step father waa adeerka aabbo oo hooyo qaba oo aan aabbahaaga ahayn. step mother waa hooyada ama eedada aabbo qaba oo aan adiga ku dhalin. intaas waa isla fahmnaan u maleynayaa. waxaan qaadanaynaa wax la yiraahdo couple oo ah lamaane ama partner oo ah lamaane ayaan qaadanaynaa. couple waa couple waa lamaane ama dad isqaba. partner ayagana waa lamaane ama dad isqaba, waa partner. okay, marka waxaan soo qaadanaynaa wax la yiraahdo husband. husband waa ninka qaba xaaska ama ninka adiga haddaad dumar tahay ninka ku qaba ayaa waxaa la yiraahdaa husband. husband waa husband. husband waa sowj ama nin. okay, nin waxaan ula jeedaa marka waa sowj, waa nin xaasla ah ayaan ula jeedaa. okay, wife ayadana waxaa la yiraahdaa wife. waxaa la yiraahdaa waa sowjad ama xaas weeyaan. wife waa xaas, waa wife. markii jamac laga dhigaayo wife s ma ku daraysid, qaab kale jamac u noqotaa. f-ta ayaa waxaa lagu bedelayaa v, kadibna es ayaa lagu darayaa. waxaa leeyahay wifes ayaa la leeyahay. wifes waa xaasas. husband waa sowj. wife waa xaas. wifes waa xaasas. intaas waa isla fahamnay. waxaan kale intoo qaadanaynaa wax la yiraahdo siblings. siblings waxaa la yiraahdaa waa walaalo. waa brother oo ah walaal wiil kula dhashay. sister oo ah gabar kula dhalatay ama walaasha ah. marka brother iyo sister markay wiilal iyo gabdho kula dhashay waxaa dhihi kartaa siblings.
oo ah walaaladay. marka brother haddii la soo gaabiyo waxaa loo soo gaabiyaa bro. bro waa loo soo gaabsadaa bro adoo ugu dhawaaqayo, laakiin markaad dhammaystiraysa bra adaa ugu dhawaaqaysaa oo ah brother. intaas waa isla fahamnay. sister ayadana waa gabadha kula dhalatay. siblingskuna waa fahamnay. waxaan qaadanaynaa marka wax la yiraahdo children. waxay ka timid asal ahaan horta children waa caruur. children guud ahaan waa caruur, kuma koobna caruurta aad dhashay oo keliya. children waa caruur. waxay ka imaaday ereygaas child ayuu ahaa. child waa hal canug markaad leedahay waa child. markaad jamac ka dhigaysid asma ku daraysid oo ma dhehaysid childis ma dhehaysid, waxaad leedahay children oo ren ayaad jamac uga dhigaysaa. waxaad leedahay children, children. intaas waa isla fahmnay. marka children waa caruur. caruurta marka maxaa ka mid ah son, wiilka adigu dhashay. son waa wiilka adigu dhashay. son ama daughter ama daughter tiida ugu dambeyso ter tiida waxaa ka dhigi kartaa r ahaana dhawaaqeeda ka dhigi kartaa as American. waxaa dhigi kartaa daughter sidaas oo kale. daughter waa dhigi kartaa daughter waa gabadha aad adigu dhashay. daughter gh ta ma ku dhawaaqaysid. daughter waa gabadha adigu dhashay. son waa wiilka adigu dhashay. daughter waa gabadhaad adigu dhashay. intaasna waxaan ku fahmnay caruurta adigu dhashay qaabkaad u dhihi lahayd. my son wiilkayga, my daughter gabadheeda. haddee jamactaana ss aad ku daraysaa oo keliya waxaa leedahay my sonis wiilasheeda, my daughters gabdhaheyga. marka waxaan fahmaynaa, waxaan aragnaa wiilasha adigu markaa dhashay waxaa leedahay son, gabadhaa dhashayna waxaa leedahay daughter. marka aabbaha iyo hooyada maxay leeyihiin? waa marka ilmahaas waxay leeyihiin, waxaa la yidhahdaa ilmahaas grandchildren. micnaheeda waxa waaye waa caruurta awowga ama ayeeyada loo yahay. marka maxay leedahay hooyada ama aabbaha oo kale wiilkaaga maxay dhahayaan grandson. wiil aa awow u tahay hadduu jiro waxaa leedahay this is my grandson, kani waa wiilkan awowgu ah. gabadhana maxaa leedahay granddaughter waa gabadha aan awowaha u ahay ama ayeeyada u ah. gabadha awowaha ama ayeeyada u tahay waxaa leedahay granddaughter. wiilkana maxaa leedahay grandson. intaas waa isla fahmnaadana. okay, waa caruurta awowga ama ayeeyada u tahay. okay, markaan marka waxaan qaadanaynaa wax la yiraahdo in-law. in-law waxaa la yiraahdaa in-law xidid ayaa la yiraahdaa. waxaan isku kii keenay familkan guur. okay, in-law waa xidid. marka waxaa leedahay father in-law waa sodoga. father in-law waa sodog. waxaa kasoo horjeeda oo ah mother in-law waa sodoh. wiilka ku qabo hooyadii ama gabadha aa qabta hooyadeed waa sodoh. waa isla fahmna intaa. father in-law waa sodog, mother in-law waa sodoh. waxaa kale intoo soo haray oo aan qaadanaynaa oo xididka ku jira son in-law waxay noqotaa wiilka aad u tahay sodoga. son in-law wiilka aad sodoga u tahay ama sodohda u tahay waxaa leedahay son in-law. okay, gabadhana waxaa leedahay daughter in-law waa gabadha aad sodohda ama sodoga aad u tahay. okay, gabadha aad sodoga u tahay maxay ku leedahay? ayada maxay ku leedahay father in-law. adiguna maxaa leedahay daughter in-law. gabadha aad sodohda u tahay maxay ku leedahay mother in-law. adiguna maxaad leedahay daughter in-law.
marka father-in-law waa sodog, mother-in-law waa sodoh, son-in-law waa wiilka aad sodoga u tahay ama sodohda u tahay, daughter-in-law waa gabadha aad sodoga ama sodohda u tahay. intaas waa isla fahmnay. waxaan kaloo qaadanaynaa brother-in-law. brother-in-law waa saydiga. brother-in-law waa saydiga. brother-in-law law w-da ma ku dhawaaqaysid. brother-in-law waa wiilka aad saydiga oo gabadha aad qabtid walaalkeed waxaa leedahay brother-in-law waa saydiga. okay, wiilka ku qabo walaalkiisna waxaa leedahay brother-in-law oo ah dumaashi. dumaashi. wiilka adiga ku qabo walaalkiisa waxaa leedahay brother-in-law. waxaa kuu soo haray sister-in-law waa dumaashida gabadha aad qabtid walaasheed. sister-in-law waa dumaashida. wiilka ku qabo walaashiis waa sister-in-law waa dumaashida. intaas waa isla fahmnay. wixii aad fahmi weysid whatsapp waad igu soo weydii kartaa insha allah. father-in-law waa sodog, mother-in-law waa sodoh, son-in-law waa wiilka sodoga ama sodohda loo yahay, daughter-in-law waa gabadha sodoga ama sodohda loo yahay, brother-in-law waa wiilka saydiga ah oo gabadha aad qabtid la dhashay, ama wiilka dumaashiga ah oo wiilka ku qaba la dhashay. sister-in-law waa dumaashi, waa gabadha aad qabtid walaasheed ama wiilka ku qaba walaashiis. okay, intaas waa isla fahmnay. waxaan hadda qaadanaynaa relatives. relatives waa qaraabo. relatives waa qaraabo. qaraabada marka qayb ka mid a familka waaye. marka waxaan soo qaadanaynaa wax la yidhaahdo uncle ayaan qaadanaynaa. waa adeer ama abti. adeer aabba la dhashay waa markaan marka uncle. halka step father oo ka ahaa adeer hooyo qaba. intaas waa isla fahmnay. uncle waa adeer ama abti. abti hooyo la dhashay ama adeer aabba la dhashay. englishka waxay labadoodaba dhahaan uncle oo ah uncle. waxaa kaloo jira aunt. waa britishka saas ugu dhawaaqa aunt ama aunt oo americanka aunt ayuu dhahaa, oo eeda ah ama habaryar ah. marka habaryar ama eedo, habaryar ama aayo waa isku mid. waa hooyada walaasheed. eedana waxaa ah aabbaha walaashiis waa eedo. marka labadoodaba aunt ama aunt waa dhihi kartaa. waa eedo ama habaryar. waa isla fahmnay intaa. laakiin eedada aabbaqa waxaa la yidhahdaa step mother. okay, intaas waa isla fahmnay. marka waxaan qaadanaynaa wax la yidhaahdo niece. niece oo ah niece. niece marka maxaa la yidhahdaa waa gabadha aad u tahay waalidka, sida gabadha aad u tahay eedada ama habaryarta ama adeerka ama abtiga. gabadha aad u tahay waxaa la yidhaahdaa niece. okay, niece waa gabadha aad u tahay eedo ama habaryar ama adeer ama abti. tusaalahan gabadha xag ka soo baxday oo walaalkaa dhalay waxaa leedahay she's my niece. ayada waa gabadha aan u ahay adeerka. haddaa habaryar ama eedo u tahay ama abti sidoo kale waxaa leedahay she's my niece. waa gabadha eedada u ahay ama gabadhaan u ahay habaryarta ama gabadha aan u ahay abtiga ama adeerka. marka niece waa gabadha abtiga ama adeerka ama eedada ama habaryarta loo yahay. yaalidku ah marka nephew. aleda nephew aleda kelmada waa nephew. nephew waa wiilka aad adeerka ama abtiga ama habaryarta ama eedada aad u tahay waxaa la yidhaahdaa nephew waa wiilkaas. nephew waa nephew.
nephew ayaa leedahay. marka labadan caruur maxay isku yihiin marka cousin ayaad ugu dhawaaqaysaa waa cousin cousin ama cousins jamac ka dhig. cousins waa ilma habreed. adiga ilmaha aad dhashay iyo walaalada ilmaha ay dhaleen waa cousins, waa ilma habreed. cousins waa ilma habreed. cousin ma ugu dhawaaqaysid, cousin ayaad ugu dhawaaqaysaa. cousins ayaa leedahay jamac markaa ka dhigaysidna cousins waa ilma habreed. waxaan u maleynayaa inaan aad iyo aad iskula fahamnay cashirkeeni ku saabsanaa family. okay, wixii ku dhiba ama su'aalaha qabtid WhatsApp ay ugu soo weydiin kartaa insha Allah. anigoo teacher Osman Abdulqaadir waxaan ku leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.